habeen wanaagsan dadka inagala xiriira bartayaga ee warar sugan 24 ku soo dhawaada warkii caweysnimo. qaar ka mid ah masjidada magaalada Muqdisho oo maanta albaabada loo xiray. nabadoon caan ah oo toogasho lagu dilay. Puntland oo qiratay inuusan dhaqan gelin amarkii lagu xiriyay xuduudaha Somaliland iyo Ethiopia. Mr. Tedros Adhanom oo si xoogan ugu jawaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. magaalada New York oo noqotay tii ugu darneed abid ee caalamka uu soo rito cudurka coronavirus. sidoo kale warkayaga waxaan ku falanqeyn doonaa colaadaha u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha, siyaasadda WHO iyo sidoo kale caabuqa coronavirus daafaha caalamka dhibaatada uu ku hayo ayaan ku soo qaadan doonaa iyo dalalka Yurub oo iyaguna dhaqaale ururis ku wada jira oo yabo ay bilaabeen. warkayaga caawa xiise ayuu leeyahay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa markana u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa albaabada u laabay qaar ka mid ah masjidyada iyo xarumaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Muqdisho. masjidyada ilaa iyo haatan la xiray ayaa lagu soo waramayaa in ay ku yaalaan degmooyinka kala ah Warta Nabadda, Waaberi iyo Xamarweyne. ma cadda sababta ka dambeysa balse waxaa lagu sheegay in loo xirayo in laga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus. markan waxaad dhageysataan qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho qaasatan degmada Warta Nabadda oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan masjidada iyo suuqyadaasi la xiray. walaalow magacayga wax la yiraahdo warsama jaamac waxaan deganahay degmada Wadajir khaasatan suuqa weyn baan deganahay. maanta waqti khudbadii soo dhowdahay baa niman ciidan iyo niman degmada iyo gobolka ka socda noo yimaadeen. waxay yiraahdeen masjid lagu tukan karaa ma jiro man kara aniga nin kale oo odayba u baxnay waxaan ku leeyahay maxaa keenay ama sheekada keenay waxa la yiri magaalada virus ku jiro cudurka ku jiro uu soo badanaya man kara. waxaan ku leeyahay meesha lagaga carari lahaa ilaahay lagu bari lahaa muxuu ahaa ducada bini'aadanka muxuu ahaa ay isugu iman lahaayeen ilaahay ku weydiisan lahaayeen inuu ka dulqaado waa masaajidada man kara. kadib waxa dhacday waxa la amar weeyaan hadaa ka bixi weydaan sheekadaas waa xili weydaan masaajidka waxa weeyaan idinku dhacday ninka mas'uulka bana la yiri man kara. waxaanu qaadnay waxaanu samaynay waanu suraysanay ninkii loogu weynaayo sheekha ahaabaan arrinta u bandhignay wuxuu yiri intii dhibaato kale meesha ka rakibin lahayd aqabu daradayn baynu qaadanaynaa masjidada masjidka waynu xiraynaa man kara. waxa la wixii Madiina ku yiilay dibkale anigu Madiina joogaa waxa la wixii Madiina ku yiilay oo dhan waa la xiray anigu intaan ogahay waxaan aaminsanahay magaalada oo dhan inay isla u xiran tahay baan aaminsanahay. tallaabadani ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli kiiska COVID-19 ee caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho uu gaaray 12 isla markaana lagu soo waramayo in ay dad badani ay u geeriyoodeen. dabli ayaa lagu soo waramayaa in ay deegaanka Yaaqbari Weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen nin nabadoon ahaa. marxuumka geeriyooday ayaa waxaa lagu sheegay magaciisa Ciise Faracade Diiriye waxauna caan ka ahaa deegaankaasi. macda sababta ka dambeysa ay loo beegsaday iyo sidoo kale ciddii dishay oo nafta dhaafisay hase ahaatee xubin ka tirsan eheladiisa oo u waramayay warbaahinta warar sugan 24 ayaa sheegay in ay dileen garab ka mid ah maleeshiyaadka isku haya Wallaweyn. qaar ka mid ah ehelada oo warkooda sii wata ayaa waxay sheegeen in nabadoonka uusan wax luga uusan ku lahaynin isku dhacyada qabiileed ee ka jira deegaankaasi. ku dhawaad 20 qofood oo shacab ah ugu badan ayaa ku geeriyooday dagaal beeleedka ka dhacay Wallaweyn iyadoona weli lagu raad joogo dhinacyadii ku lugta lahaa ee ka dambeeyay falalkaasi ka dhacaya magaalada Wallaweyn. wasiirka warfaafinta Puntland Cali Xasan Axmed Sabarey oo saxaafadda u akhriyay warbixinta guddiga Puntland u qaabilsan ka hortagga cudurka coronavirus ayaa u xaqiijiyay in uusan dhaqan gelin amarkii Puntland ay ku xirtay xuduudaha dhanka Somaliland iyo Ethiopia. wasiirka ayaa sheegay in laamiga dheer ee isku xira Puntland iyo Somaliland uu si cad weli u furan yahay isla markaana gaadiidka kala duwan ay si maalinle ay u maraan. taasi uu sheegay in uu indhihiisa ku soo arkay socdaal uu goordhow ku tagay deegaano ka tirsan gobolka Sool. mudane Sabarey
oo ku baaqay in Puntland ay ciidamo gaar ah u samayso dhaqangelinta bandowga lagu soo rogay xuduudda dhanka Somaliland iyo Ethiopia maadaama uusan weli amarkii hore uusan dhaqangelin. Wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in xuduudda Puntland ay la wadaagto dhanka Ethiopia uu isna weli uu furan yahay uusan dhaqangelin amarkii ay soo rogtay maamul goboleedka Puntland si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa si adag u difaacay hay-adiisa ay ula tacaalayso faafitaanka cudurka coronavirus isagoo jawaab kulana siiyey eedeyn uu u soo jeediyey madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump oo sheegay in laga yaabo in uu maalgelinta ka jarto ururkaasi. agaasimaha WHO ayaa ku baaqay midnimo iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale xasarada caafimaad ee caalamka isagoona si gaar ah ugu baaqay wadamada Shiinaha iyo Mareykanka in ay muujiyaan hoggaan daacadnimo ku saleysan. Mr. Tedros ayaa sheegay in uu rajeynayo in Mareykanka uu sii wado taageerada uu siiyo ururka WHO. Donald Trump iyo maamulkiisa ayaa Arbacadii dhaleecayn ka dhan ah ururka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Mike Pompeo ayaa sheegay in Washington ay qiimeynayso lacagta ay ku taageerto ururka isagoo uu sheegay in hay-adda caalamiga ah ee hela lacagaha canshuur bixiyaasha Mareykanka looga baahan yahay in ay ka soo baxaan hadafkooda. Si kastaba ha ahaatee, Mr. Pompeo ayaa diiday isbeddel imika lagu sameeyo hoggaanka hay-adda WHO. Mareykanka ayaa sanadkii 2019 siiyey WHO in ka badan $100 milyan taasi oo 2 goor ka badan tan dalka labaad ee ku soo xiga Shiinaha ay bixiyaan oo ah qiimo gaaraya $44 milyan in ay siiyaan ururka WHO. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale shaki ka muujiyey sax ahaanshiyaha xogta Shiinaha ee ku saabsan heerka dhimashada cudurka coronavirus ee dalkaasi isagoo ku eedeeyay WHO in ay ka caawiso Shiinaha in ay qariyaan cadadka dadkii ka geeriyooday gudaha dalka Shiinaha. hase yeeshee Mr. Tedros ayaa ku adkaystay in WHO ay dunida la socodsiinayso xogta akhbaaraadka iyo cadeymaha cudurka markii uu ka soo shaacbaxo Shiinaha iyadoo ay sheegeen markii ugu horeysay December sanadkii 2019. madaxa ururka WHO Mr. Tedros ayaa ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Ethiopia waxa uu sidoo kale diiday eedeymaha Trump ee ah in WHO ay tahay hay-ad ay Shiinaha saldhig u tahay waxauna sheegay in ay u dhow yihiin dal kasta. tirada magaalada New York ee uu soo ritay COVID-19 ayaa khamiistii shalata ahayd waxa ay gaartay 159,970 taasi oo ka sare maraysa dalka Spain oo dadka cudurkaasi uu soo ritay iyagu dhan yihiin 153,000 oo qofood halka dalka Talyaanigana tirada ay gaartay 143,000. Shiinaha oo ah goobtii uu cudurkaasi ka soo bilaabmay ayaa tiradu ahaan waxay imika ay maraysaa 82,000 oo kiis taasi oo micnaheedu ay tahay in magaalada New York ay ka sare martay dhammaan dalalka kale ee ka baxsan Mareykanka. guud ahaan dalka Mareykanka dadka uu cudurkaasi soo ritay ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 462,000 halka dhimashadiisuna imika ay marayso 16,500 oo ruux. guud ahaan caalamka ayaa tirada cudurkani soo ritay ay imika ay gaartay 1.6 milyan oo qofood halka tirada dhimashada caalamkana ay marayso 95,000 oo qofood iyadoo ay magaalada New York ay hogaaminayso caalamka tirada dadka uu soo ritay cudurka coronavirus dhimashaduna ay tahay 7,000 ayaa dhammaan dhimashada waxa ay ka hooseysaa dalalka Spain oo ay dhimashadiisu ay marayso 15,500 halka dalka Talyaanigana ay cudurka u dhinteen 18,000. dhanka kale magaalada New York ayaa waxa ay bilaabeen in ay xabaal wadareedyo ay ku aasaan dadkii ku dhintay xanuunka coronavirus xilli tirada dhimashada ah ay weli sare u sii kacayso. meydadka ayaa lagu aasay jasiiradda Hart iyadoo aysan eheladooda ka qaybgeli karin. jasiiraddan Hart ayaa lagu aasi jiray dadka ku dhintay magaalada New York ee aan la aqoonin eheladooda.
muuqaal ay soo duubtay diyaaradda aanan duuliyaha wadin ayaa la sheegay in ay soo duubtay muuqaal argagax weyn ku abuuray dadka ku dhaqan dalka Mareykanka iyo daafaha caalamka. ayaa muuqaalkaasi waxa ay muujinayaa meydadkaasi oo lagu aasayo xabaal wadareedyo. dhanka kale, wasiirada dhaqaalaha ee dalalka Yurub ayaa waxa ay ku heshiiyeen dhaqaalo dhan 400 milyan oo euro oo loogu talagalay samata bixinta dalalka Yurub ee sida ba'ani ugu dhiftay cudurka safmarka ah ee coronavirus. gudoomiyaha kooxda Eurogroup Mario Centeno ayaa sheegay in qorshaha uu muhiim u yahay xaqiijinta dib u soo kabashada dhaqaalaha si loo difaaco suuqyada Yurub. lacago deyn ah ayaa dalalka Yurub la siin doonaa si ay taasi gacan uga geysato bixinta dhaqaalaha, adeega caafimaad iyo si loo caawiyo shirkadaha iyo dadka aanan shaqaynin. warkii caweysnimo intaas ayaan ku soo koobayaa. sidaa iyo nabadgelyo.